aayadaha quraanka ee muujinayo waxbarashada inay muhiim tahay waxa kamid ah qul hal yastawi alladheena ya'lamuuna wal ladheena la ya'lamuun dadka kuwa wax bartay iyo kuwa aan wax baranin ma siman yihiin macna ma sinno farqi badan oo dhaxeeyo soo mar walba ilaahay uu hadlaayo uu rabo inuu la hadlo adoomihiisa wuxuu la hadlaa inta badan dadka ulul albaabka la dhahayo yani dadka aqliga u saaxiibka ah Soomaa ilaahay wali asoo la hadlaayo quraanka inta dhiganayna ma ku maqlin dadka oo doqomada macna soo doqon iyo aqli inta badan waxa xadidaya inkastoo un samays iyo wax kale ay jiraan laakiin waxa xadidaya qofka wax barashadiisa macna qofka haduu wax barto hadii uu kala garanayo kana saxan kana khaldan macnaheedu waxa waa qof aqli u saaxiib Soomaa soo saxnaanshaha iyo khaldanaanta waxay ka iimaanay qofka inuu wax soo bartay macna inuu wax soo bartay kadibna uu kala garanayo kana saxan kadibna uu garanayo wixii saxanna inuu qaato wixii khaldanna uu ka tago taas waxay keenaysaa in la dhahayo macna qofkan aqli u saaxiib yahay soo ahadiista marka uu iimaano rasuulka ahadiista rasuulka laga soo wariyay oo saxiixa ah waxa ku jiro dalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslima qaar waxay riwaayadka qaar waxay sheegaan ala kulli muslimin ay ku egtahay kulli muslimin ay macnaheedu kullu maan tahay lab iyo dhidig labadaba okay so dalabul ilmi inuu qofku cilmiga asaga raadiyo waxa la dhahaa waajib waxay ku tahay wiil iyo gabar labadaba macna so aan hooyaday markay dhashay ayadoo garanaysa inaan qof yar oo wax kala garanayo ahayn waxay igeysay dugsi quraanka markii aan dhameeyay waxa la igeeyay iskuulka wixii ka dambeeyay ana doorashadeeda laha inaan wado inaan dhaafo macna sama so iskuulkii aan ka dhameeyay qof khasbana aha inaan khasbanaadan waxay dan iigu jirtay aniga horumarkayga shakhsiyadeed macna so qofka iskuulka markuu dhameeyo talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslima halkan ay ka iimaanaysaa macna qofka inuu sii barto wixii inay waajib ku tahay because iskuulka ilaa nisba ayina lagu baraa macna nisba maxduuda oo li tacliima lagu baraa macna inta ka dhiman adii si dhameystira waaye samaha so in cilmiga qofka asaga uu raadiyo waajib diiniya waaye waxa la dhahaa al ilmu yu'ta wala al ilmu ya'ti wala yu'ta ma qofka cilmiga adaa doonaayo ma askuuma iimaanayo waraa kaala wax ibaro ku dhahaa cilmigaasi ku dhahayo waa ina adii raadisaa oo cilmiga soo barata oo meesha xalqaadka diiniga ama xalqaadka cilmiga caadiga maadiga lagu baranayo ina tagtaa ina soo barata cilmiga markii la dhahayo laba nooc loo kala qaadaa midna waa diini midna waa maadi macna yani diiniga wuxuu ka asal yahay mar walba kan maadiga qofka Soomaalida naturally way iska qaateen aragtidaas inay qaataan wax fiican ay noo ahayd because inta badan qoysaska Soomaaliga waxa ka dhacsan in cunuga koow dugsi quraanka in la geeyo inay ka asal tahay in iskuul la geeyo qof ma lagu jira anaga soo iskuul dugsi dhiganin iskuul hore laga geeyo ma lagu jiro koow sababta ay nagu jirina waxa waaye mujtamaceena Soomaaliyeed waxa ka dhacsan aragti ah qofka in dugsi quraanka inuu barto inay ka asal tahay in xisaab iyo science iyo physics iyo biology iyo chemistry in la baro macna because quraanka wuxuu ku barayaa dhammaan diinta waxay ka kooban tahay oo dhan khasab ma aha qofka inuu macnaha quraanka garanayo laakiin dugsiga marka tagtid waxa lagu barayaa adkaarta subaxii marka guriga ka baxaysid akhrinaysid maxaa waaye marka seexanaysid maxaa akhrinay dukhulul hamaam maxaa la akhrinaa markii laga soo baxay maxaa la akhrinaa ma waxaas iskuul ma lagu dhiganin dugsiga lagu soo dhigtay macna sax so waxaas adoo yaqaano inaad tagtid iskuulka waxay ka asal tahay adoo aqoonin inaad tagtid sababtoo macallinkiina ma ixtiraami ka dhid hadhoodii oo kula hadlaayo ma garanaysid waajibka oo macallinka kugu leeyahay laana macallinka waxa la dhahaa kaadal muallimu an yakuna rasuulan ma ho macallinka wuxuu ku dhawaaday inuu rasuul noqdo macna sababteedu waxa waaye macallinnimada laftirkeeda ma shaqo waaye macna inaa konton arday inaa meel isu keentid oo kala dabeecad duwan kala dhaqan duwan kala qoys duwan kala deegaan duwan kala maxaa la dhahay dhammaan waxyaalaha oo qarsoon iyo wax muuqdo dhanka kala duwan inaa haysid 6 saacadood ugu yaraan waxna aad u dhigtid ku khasabtid inay ku fahmaan waxa dhigaysidna qaataan laftirkeeda shaqo weyn waaye ma so waxa la dhahaa macallinka inuu rasuul noqdo ku dhawaaday ayadoo la fiirinayo rususha ma shaqaday mari jireen rasuulka markii la soo diro asoon ummadda aysan garanaynin ilaaha jiro rasuul waxa jira diin oo islaam la dhahayo dhammaan rususha dhibay ka mari jireen nabigeena ugu dambeeyay maxamed sallallahu alayhi in asoo oo diinta faafinayo dhowr jeer la tuuriyan jiray la dili jiray la cayn jiray majnuunaata la dhihi jiray wax badan lagu sameyn jiray Soomaa so anaga laftirkeena macallimiinta qaarkii markay noo soo galaan waxa dhahnaa macallinkan wax jira ma aha ya khayr kan waa laga fiican yahay
kan waxa wuxuu ku fiicnaan lahaa in laga bedelo macalinka laftirkiisa dib uu marooya iskuulka intuu joogo waajibkiisa shaqahaayana wuxuu wadaa maxaa lahaayee inuu adi wax ku baro gurigiisa markuu ku laabtana weli shaqadii macalinimadu haaya cashirku biri ku dhigi lahaa uu diyaariyaa so macalinimada that's why loo dhahay inuu wuxuu ku dhawaaday inuu rasuul noqdo so waxbarashada anagoo ka amba qaadayno waajib diini inay tahay talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim isku raacne